Ma maqashay qisadii Namruud oo ahaa boqorkii gaalka ahaa oo dhulka xukumi jiray geeska gees iskuna dayay inuu Alle subxaanahu wa tacaala la tartamo. Waxaa aad u yar dadka si xeel dheer u yaqaana qisada boqorkaani isla weynida ka badatay. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu warramay mid ka mid ah aayadaha ugu waaweyn Qur'aankiisa. Waxaan halkan ku faahfaahin doonaa muuqaalkan aan ku sheegi doonaa qisada Namruud iyo wuxuu ku sameeyay Nabi Ibraahim calayhi salaam iyo meesha la yaab kale ay ku dhamaatay qisadiisa. Namruud wuxuu ahaa mid ka mid ah boqorada ugu waaweyn ee adduunka soo xukumay. Wuxuu Alle siiyay xoolo aad u fara badan iyo sharaf intaba. Waxa uu ahaa nin haysta boqortooyo aad u xoog badan iyo ciidamo aad u fara badan. Wuxuuna haystay kayd aad u fara badan oo buuxiyay dhammaan qasriyadiisa. Boqortooyadiisana kuma aysan koobnayn hal magaalo ama hal wadan. Wuxuu xukumi jiray dhammaan dhulka iyo wixii ku jira. Adduunyadan soo marin gaal wada xukuma marka laga reebo asaga iyo mid Ibn Abbas waxaa laga wariyay radiyallahu anhu inuu yidhi rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhulka waxaa soo xukumay 4 nin, laba mu'miniin ah iyo laba gaala ah. Labada mu'miniinka ah waxay ahaayeen Dulqarnayn iyo Suleymaan alayhi salaam. Labada gaalka ahayna waxay ahaayeen Namruud iyo Bakhtunasar. Waxaan shan ku noqon doonaa mid ka mid ah ahlu beytkayga. Namruud boqortooyadiisa waxay la ekeyd boqortooyadii Nabi Suleymaan alayhi salaam, kaasoo Alle siiyay maamulka dhulka iyo waxa ku jira. Waxaa la yidhi Namruud wuxuu ka soo jeedaa Ciraaq, wuxuuna noolaa 400 oo sano. Qasrigiisuna wuxuu ku yaalaa Ciraaq. Waa uu ka weynaa Fircoon, waana uu ka awood badnaa. Wuxuu Alle Azza wa Jalla doonay inuu soo diro nabigiisa Ibraahim xilligii Namruud. Dadka waxa ugu imaan jiray meel walba wuxuuna siin jiray cunno iyo cabitaan. Qof walba u yimaado intuu subax siin wuxuu weydiin jiray yaa waaya rabbigaaga, ma aaminsan tahay inaan ahay rabbigaaga? Qofka baahan wuxuu ugu jawaabi jiray markaasi haa waan ku aaminsanahay. Markaas ayuu siin jiray cunno iyo cabitaan. Namruud naclatullaahi calayhi wuxuu u sheegtay ilaahnimo sidii uu sameeyay Fircoon naclatullaahi calayhi. Dadkana wuxuu ku qasbi jiray inay isaga caabudaan iskuna duleeyaan. Sidaas ayuu ahaa ilaa uu maalin Nabi Ibraahim alayhi salaam uu baahdo cunno iyo cabitaan si uu u quudiyo ehelkiisa. Nabi Ibraahim alayhi salaam wuxuu aaday Namruud si uu cunno uga soo qaato. Namruud ayaa dhankiisa eegay wuxuuna ku yidhi yaa waaya rabbigaaga, ma aaminsan tahay inaan rabbigaaga ahay? Nabi Ibraahim alayhi salaam wuxuu ku yidhi maya rabbigayga ma tihid. Namruud wuxuu ka naxay jawaabta uu siiyay Nabi Ibraahim alayhi salaam, waayo hore ulama uusan kulmin cid beenisa. Namruud wuxuu ku yidhi waa yaab, ma waxaad leedahay rabbi aniga ahayn? Nabi Ibraahim wuxuu ugu jawaabay haa. Namruud wuxuu yidhi yaa waaya rabbigaaga, sifooyinkiisana maxaa ka mid ah? Nabi Ibraahim alayhi salaam wuxuu ugu jawaabay rabbigayga waan ka wax nooleeyay waxna dilaa. Namruud wuxuu yidhi taas waxa aad igu fudud waaye dhankayga, amba waxan waan dilaa waxna waan nooleeyaa, anigana waan ka fiicanahay rabbigaaga. Allah Azza wa Jalla asagoo nagu warramay Qur'aankiisa wuxuu yidhi إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. Nabi Ibraahim wuxuu ku yidhi sidee wax ku dishaa waxna ku noolaysaa? Namruud wuxuu ciidankiisa faray inay keenaan 2 nin oo dilku xukunaa markaas. Mid ayuu dilay, mid kalena wuu u cafiyay, wuuna sii daayay. Markaasuu Nabi Ibraahim ku yidhi soo ma aragtay inaan wax dilo waxna nooleeyo aan rabbigaa ka fiicanahay? Wuxuu yidhi maxaa kaloo rabbigaa sameeyay? Alle ayaa Nabi Ibraahim u tilmaamay erayo Namruud sidiisa burburinaysa gabi ahaanba mugdi gelinaysa. Wuxuuna ku yidhi haddii ilaahnimada aad sheeganayso dhab tahay, rabbigay wuxuu qoraxda ka soo bixiyaa bariga, bal adigu ka soo bixi qorax dhaca galbeedka yacni. Sidaas ayuuna Nabi Ibraahim dadka ugu cadeeyay beenta iyo baadida Namruud, mana uusan ka jawaabi karin dalabkiisa. Waa uu aamusay, wuxuuna yidhi carro iyo weerar awgii ha laga saaro qasrigayga dhan. Nabi Ibraahim waa uu ka tegay asoon wax cunno iyo cabitaan midna uga soo qaadin ciddiisa, taasuu awal ugu yimid. Haddaba qisadan ayadoo dhammaystiran muuqaalka dambe ayaan kula wadaagi doonaa.
waxaan ka dhigi doonaa muuqaalka labaad. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan.